sheeganeedooda laakiin si kastoodu u egto runtii dadka Soomaalida guryahooda inta badan ganacsatada CCTV baa ku taala tuugadii dhacdaba waa la duubaa markaad eegto waa maalmahan dambe labadii cishaba saddexdii cishaba mar baad arkaysaa meel la weeraray oo lacag laga qaatay afduubida ka soko marka way iska jirtaa laakiin se ma badna anigu waxaan leeyahay wadanka mushkila ka jirta mushkilada dhaqaalaha ka jirta haddaad eegto oo wargeysyada akhrisato idaacadahan aad dhageysato meelaan wax laga afduubin meelaan wax lagu dilin meelaan la boobin maalintii oo dalkan ama jirto maanta marka in heegan la ahaado oo la taxadaraa fiican sheegeen sidii loo afduubay gabadha iyo sidii loo faraxumeeyay iyo meeshii lagu hayay runtii oon aad iyo aad uga xumaaday laakiinse waxaan ku faraxsanahay markii aan Hafsa u tagay in wajigeedu aad u fiicnaa maskaxdeedana aad u fiicneed si fiican bay u hadlaysay waxay nooga warantay mar ay halkan ka tagtay gabadh saaxiibadeeda ay raacday xaafadka yoole la yiraahdo gabalnimada iyadoo tukanaysa iyadoo salaada ku jirta in la qabto wixii ka dambeeyana meel biyaha meel haan biyo oo plastic ah in ay 5 cisho ku qufsaneed oo wax cunto ah ama sadad ah aanay arag markii dambena oo ay daashayna ay cabaaday oo markaa darisku ay bilisku u sheegeen meeshaasi haantaasi in qof binaadan oo ka soo dhawaaqay sidaas ay ku badbaaday isla markaana nimankii haystay way kala carareen sababtoo ah waa lagu daba jiray niman darcad oo fara badan baa xaafadda lagu daadiyay oo ku daba jiray gabadha kale maqalna sidaas oo kale loogu daba tiray tan iyo shalayto askar badan baa xaafaddaasi lagu daadiyo raad raacay